maanta waa maalin kale oo weyn oo kamid ah maalmihii Soomaaliya bariyahan dambe dhanba dadka Soomaaliyeed guulihii waaweynaa ay gaarayeen oo ay soo calaameynayeen maalin walba meel ay higsanayeen inay gaareen. waxaan rabaa halkan inaan uga gudbiyo hambalyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin guud ahaan gaar ahaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya golaha shacabka muxuu ahaay si gaar ah ayaan ugu hambalyeynayaa sida deganaanshiyaha iyo xilkasnimada leh oo maanta ay waajib weyn oo dastuuri ah ay u guteen oo ahaa doorashada gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. hambalyan leeyahay xildhibaanada dhammaan waxa kale sidoo kale hambalyo leeyahay dhammaan raggii tartamayaasha ahaa ee u tartamay xilka gudoomiyenimada baarlamaanka federaalka ah sidii bisaylka siyaasadeed iyo bisaylka maxaan ku iraahday dawladnimo ee ka muuqatay intii ay hadlayeen iyo intii ay meesha fadhiyeen intaba hadaladii ay ku hadleen aqbalaadii ay aqbaleen sida maxaan ku iraahdaa go'aanku uu dhacay oo maxaan daahfurnaanta lahayd ayagana waxaan leeyahay waad guuleysateen Soomaaliya ayaad muxuu ay guuleysiiseen dhammaantiin waxaan idin leeyahay hambalyo ma aha cid laga adkaaday cid adkaatay ma jirto laakiin baarlamaanka federaalka Soomaaliya guuleystay ummadda Soomaaliyeed ay guuleysatay. inta kadib waxaan si gaar ah hambalyo u leeyahay gudoomiyaha cusub mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo aan leeyahay asagana hambalyo xil culus ayaa lagu doortay dadka Soomaaliyeedna amaana ayaad u qaaday nin lagu yaqaanana waa tahay inaad amaanada ilaaliso waxaan leenahay marka Ilaahay ha kula galab galo mas'uuliyadaas iyo xilka aad qaaday waana kugu hambalyeynayaa kalsoonida shacabka Soomaaliyeed oo ay matalayaan golaha shacabka ee aad ku siiyeen aad ku guuleysatay kasbatay kalsoonidooda adigana waxaan ku leeyahay hambalyo waxaan ku rajaynayaa baarlamaanka tobanaad ee golaha shacabka in aad ku hogaami doontid si waafaqsan dastuurka xeerarka dalka iyo xeer hoosaadka baarlamaanka iyo danta dalka iyo dadka iyo diintaba sida ay ku jirto oo dalkan maslaxadiisu ku jirto waxaan leeyahay Ilaahay adigana wadada toosan Allah ku waafajiyaan leena oo hambalyeena sidoo kale ugu dambeyntii waxaan rabaa iyadana inaan bogaadin hambalyo mahadcelin intaba aan u diro ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo guud ahaan u istaagay doorashada maalinta bilaabatay ilaa maanta u taagnaay si gaar ah 48 saac ee la soo dhaafay howlgallo iyo istaag iyo maxaan ku iraahdaa hurdabeel iyo maxaan ku iraahdaa qorax iyo dhaxan ugu taagnaa sida ay u xaqiijin lahaayeen amnigu inuu sugnaado si doorashada kalsooni buuxda iyo ammaan ay ugu dhacdo. adinkana waxaan leeyahay waad guuleysateen hambalyo inta dhimanna muxuu ahaay ku wada sida u adkeeya amniga dadka Soomaaliyeed si ay uga gudbaan xilligan cadawga uu doonayo dadka iyo dawladda iyo guud ahaan dalka Soomaaliya inuu kufiyo oo doonayo sida aad weligiinba geesinimada uga hortagi jirteen kuwada waana ku mahadsantihiin dadaalka aad dalkiina aad u sameeysan iyo dadkiina dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay